فريه جاكدي قاتي قاري صارتي وإيش نقضي فراه كم وإيش وإيدي الباب مركي كم حيبه وأنا أقول بتريد إلهي ونحرس آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون الله ونحرسه أسامة إبراهيم آدم الله ونحرسه nin dhalinyaro oo aad u firfircoona waalidkana baari u ahaa waalidka aad u kaalmay u ahay what you see is opportunity for yourself to what's going to happen for me when I'm here. What's going to happen? Are you going to be going back to the same things you're doing when you leave this graveyard? Anyone. Allah told him, Ya Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala told him that innaka mayyit. You will die one day. labaatan jir uu ahay markaan ninkan wuxuu ka shaqaynayay security furihii gaarigii hooyadiisa soo qaatay markaan gaarigii markii hore shaqada ku tagi jiray markaan gaarigii hooyadiisa soo qaatay gaarigii hooyadii furihii ababa jaakadaada ku jirta isii waay gaarigii isii halkii dhahay furihii jaakadii qaatay gaarigii saartay waa ii soo noqday furaha ka muuqaya waa ii dhiibay albaabka markii ka baxayba وأنا أقول بتريد إلهي ونحرس. آمين. جل فردوس الله كورابي إن شاء الله. دبا عدي سكورا. ما دبا عدي أوكي وين اللي يرى في أنواع. يهالبنا يقولوا بارئة صلاة كوك الله وين صلاة سوا الفتو كني. هذا نين سليم وإن شاء الله أهل الجنة وين. آمين آمين حقيقة كل شيء. سعودي عربية. سعودي عربية. أنت مين كوك قريب ميس. أنت سقط صدق سعودي جري أمية ملاستك يعني. الله waxaan uga warantaa markii laga tago shaqadiisa iyo dabeecadiisa kale nin noocee ahaa nin ciyaaraha wallahi nin wanaagsan u ahaa iskoolkiisa waa dhamaystay wixii dhan oo ahaysta markaan nin oo farcoon oo amrada macnaha samarkaan waxa u wada rabay naag ku soo daro naagtina waa u raadshay markaan ada wixii qadar Allah markii xabadaha ku dhaceen adu waa toos ma dareemin baan walaalkii wiilkiisa weena macnaha ani markii furaha ii soo celiyay ninkan wiilka weyn yaa kor ka soo degay saman ii shadfiya ay dhahay jaman waa la tuuray xabadan dhaxay baba saama aawi way saama taa baxay way dad la shoot gareeyay way waa ordi ninkii laamigi hatii tagay wiilkii yaalab ana ka daba baxay intii sarwaalkay gashanay wax ku gaarneen malaha anafta ku jirtay leeyahay laakiin wax ku jiri malaha ma dhaqaaqayn ma nuxtanayn dadka waxay leeyihiin ambulance aad bay u soo daahday half hour leeyahay taas wax weyn ma adoo wax kale ka soo hormaray waqtigiisa ka soo hormaray mana dowladda ka soo hormartay ambulance booliska ka soo hormaray markaan wixii qorna waa soo daahay waxa amarkii qorna ala kulli hal الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون الله ونحرسه أسامة إبراهيم آدم الله ونحرسه nin dhalinyaro oo aad u firfircoona waalidkana baari u ahaa waalidka aad u kaalmay u ahay waa muxuu ahaa dhalinyarada meesha looga jeclaay bay joogeen waalidku u dhagan nuglaa aad buu u fiicnaa wiilasha guriga joogna ugu fiican buu ahay laakiin ilaahay baa qaatay qadarta ilaahayna waa inaan ku qanacnaa haddaan nahay waalidiinta halkan joogto magaalada Edmonton joogto aad baan ugu walaacsanahay dhalinyarada markaasta muxuu ahaa falalkan dhacayaan aad baan waa nagu soo noqday aad baan ugu xunnahay aad ugu walaacsanahay dalkin abni darre ugu soo cararnay halkan amni baa u soo raasanay abni xumada hadda dhalinyarada aad baan ugu murugaysanahay Ibrahim Sabar Jamile Allah siiyo marka waa idin mahad celinayna waan duugnay Usaama Ibrahim Aadam maanta waa duugnay qabrigiisa halkan ahaa qabrigiisa Allah u waansaay Allah u naxariisto aad u mahadsantiin saxaafadda daatihiin macallin dugsi baan ahay halkan Edmonton Southwest Southka ku ahay macallin dugsi Quraan ku dhiga marka yarkan ilmaha ka yar hataa markii aan hadda nooradka aan deganay laftay macallin baan u ahay ku isaga yar marka dhalinyarada ilmaha keenayso oo hor gadaal u wadayso aad ma artay ilmaha waalidku caawiyo buu ahay wiil aad u fiican buu ahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta geeridan aan ka soo qayb galay wiilka dhalinyarta ee Usaama ku dhintay iyo walaal kale oo isna reer Edmontona ومجلس علي اللي يرادو إلهي لا وضبه هم نحرسته أولا إلهنا كسر السيو أهل كيسيا قرابة ذي أنا دعينا مركا سيان فرصتنا نوقف هذه استو ما أنت جريدة نحن ترى خاصة تمويل كذا يرتاع ونن إنسنت ودنبيلا هين للدليل جريدة إسا نقوم عصبة سومالي هان جاليدنا حنون بدوان السومري لكن مدبمد بكسي حنون بدوان تاعي marka fariinta aan idin soo jeedinayo awalan aan naftayda inta waalidkan la hadlaya anigu ugu horeeyo waxa weeyaan inaan horta awal mar u fahanno arrintan inay tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala imtixaan oo nagu imtixaamayo
caruurtaas aynu ku hayno waddan aan islaam ahayn in ilaahay ay sunnaha ilaahay ka mid tahay siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi alif laamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun ilaahay wuxuu yidhi dadkuma waxay u malaynayaan in aan saa ku dayn doonno inay yidhahdaan ilaahay maan rumaynay keligii annagoo aan fitnayn fitnadu dhinacyo badan bay ka timaadaa marka waalid haddaad tahay aabbe iyo hooyo inaad horta fahamto awlaaddeennu si inay fitna inoo yihiin fitnadaasina waxaa ka mid a ilmihii oo nalaga hor qaado isagoo yar oo inaan ku raaxaysan araggiisii iyo muuqaalkiisii iyo noloshiisii marka awalan waxaan leeyahay horta hala sabro ilaahay ha loo noqdo hana la sabro innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun fariinta labaad waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nafna ma kalifo siduu ilahay qur-aan ku sheegay haddaysan qaadi karin mas-uuliyadda laa yukallifu allahu nafsan illaa wascahaa ilaahay hadduu ina siiyey caruur badan khaasatan dadkeena soomaalida ah oo 5 caruur ku siiyey 6 ku siiyey 8 ku siiyey 10 ku siiyey ilaahay wuxuu og yahay awooddaas iyo tarbiyadooda iyo awooddooda inaad kartid balanta aayaddaasaan ilaahay tarbiyada caruurta ha lagu dadaalo ayaan laga daalin waxa weeyaan xasuusinta khayrka wuu imaqli waayey gabadhu wuu imaqli weyday kani wuu imaqli waayey ayaan laga daalin dacwada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa ahayd quraysh wuxuu la hadlayay 13 sano ayuu ku daalay waxa weeyaan in yar baa ka soo raacday haddana 10 sano dacwada sii waday calayhi salaatu wasalaam marka inaan laga daalin ilmahan ilaahay baa abuuray halkan ilaahay qadaray inay ku dhashaan ay ku koraan waa in dacwada iyo khayrka aan laga daalin weeyo kow ta saddexaad waxaan leeyahay midnimada ha la ilaaliyo qof looma noolaan karo waddanka hadduu qofku is yidhaahdo maanta guri fiican baa haysataa ilmahaagii waa kuu shaqaynayaan islaantaadii waa kuu fiican tahay uu qof walba adduunyo iskaga mashquulo goormaa lagu xasuusanayaa in masaajidkii la tago goormaa la xasuusanayaa in awlaaddii ilaahay la kaxeeyo oo la geeyo meelihii khayrka lagu sheegayey goormaa la xasuusanayaa in waxa weeyaan ilaahay loo toobad keeno waxa weeyaan adduunkan macmacaankiisa yuusan ina degin marka aan dib ugu noqonno ilaahay dariiqiisii annagoo midaysan waxa qof walba hadduu online intuu wax ku dhigto uusan masaajidadii la tegin oo aad hadda arrintaas u faaftay hadda qofka kasta kelikeli buu u nool yahay markaas laakiin isku imaanshaha in la soo camiro masaajidadii ilaahay oo xalaqaadkii laga soo qayb galo oo waalidku is wareystaan aniga ilmahan dhibka naga haystay see wax loo daweeyaa waxaa imanaysa in khibradda la isweydaarsado laakiin hooyo kasta iyo aabba kastaba hadduu intiisa isku koobo haddii waxay warwar iyo rafaad ayaa imanaysa marka dambena waa la isdagaaliyo familigii waa la isku kici idhaaf guriga iga bax baa wiilkii lagu odhanaya adna ha igu soo noqon baa la odhanaya haddii arrintaasi bilaabantana dhibaatadan oo kale unbaa imanaysa marka hadhowto ma dhammaanayso laakiin mashaakilka aan xalinno ilaahay baa keena mashaakilka bini aadan baan nahay waa ka bixi karaa aniga kulli fariinteedu waa intaas ayaan ilaahay jazaakumullahu khayr ilaahay khayr haydin siiyo kaalmada iyo dadaalka u haysaan masjid saxaaba iyo community-ga aan dhisno aan isku sabirno meel fiican baan gaaraynaa aniga iyo diila badan baa igu jirta insha Allah taala xanuun badan waa ina maray laakiin waa ka baxaynaa xagga way rajadu kuwa dambaa waxaan baran doonaa si fiicanna waa uga bixi doonaa iskaashaysano aan iskaalmaysano baarakallahu fiikum salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gather round, brother. Gather round. Gather round, please. Come over. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran. كل نفس ذائقة الموت. Every living soul. One day, death will come to it. So Allah subhanahu wa ta'ala, He said, كل نفس. It's a general words for every living soul. It doesn't matter how old are you. It doesn't matter were you sick or not. It doesn't matter that you're very careful or not. It doesn't matter what you do. Allah subhanahu wa ta'ala has promised that. Allah subhanahu wa ta'ala told His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the best man walked in the face of the earth. Better than me, better than you, better than anyone. Allah told him, Ya Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala told him that, Innaka mayyit. You will die one day. So we know it's reality. But Allah subhanahu wa ta'ala is very merciful. When He takes someone in a young age, because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to prevent him
from a life that he could do wrong in it. So Allah loves this person. When someone dies at a young age, Allah subhanahu wa ta'ala has destined that for him. Allah wanted him to be a shaheed. Allah wanted him to take his soul, so he stopped him from doing sins in later on. So that is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on him. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he's telling us what to do to benefit the brothers and the sisters that they die. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said, when son of Adam dies, all his deeds come to an end except sadaqatin jariyah, to do continuously charity on his behalf, to make dua for him, to do umrah for his behalf. Every time when you pray, you say, oh Allah showers him with mercy and forgiveness. But my dear brothers, do you know what our issue is? We do not follow the teaching of Islam. We do not follow the direction that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. We do not follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That all of us proudly we said we are Muslims. But our issue, when we ask someone, you're Muslim and you're proud to be a Muslim, they said yes.